السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in xuutiyiinta dalka Yemen caawa weerar halis ay ku qaadeen eraboorka weyn ee ku yaala gudaha Israel Ben Gurion, taas oo keentay nidaamka hagista hawada eraboorkaasi in qalqal uu galo oo gabi ahaanna eraboorka mar kale uu xirmo. warbixin yaab leh oo ku saabsan weerarkaas aynu barnaamijka caawa qodobka ugu horeeya iskula eegi doona. xaaladdu caawa ma sahlano. qodobada sidoo kale caawa barnaamijkan idinku heynayana waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda dalalka Carabta ayaa afka furtay caawa kadib markii isbuucan Israa'iil ay u diiday in wasiirada Carabta ay tagaan daanta galbeed dhulka reer Falastiin. maxay ku tilmaameen Israa'iil? maxayna tahay tallaabada ay sheegeen in dowladahan Carabta wasiiradani ay qaadi doonaan? yana barnaamijka aynu faahfaahinta iskula eegi doonaa. qodobka ugu dambeeyana barnaamijka waxaad ku maqli doontaa wasiirka difaaca Israa'iil Katz oo caawa war carab weyn ka dhaliyay bariga dhexe, guud ahaan xulafada Israa'iilna shaki badan geliyay, ku dhawaaqay kadib markii uu sheegay dagaalka in Israa'iil ay sii wadi doonaan heshiis iyo heshiis la'aan, ciidamadana amar uu siiyay. waa maxay sababta ku aadan weerarka lagu sheegay inuu yahay midka argudashada ah ee ay qaadeen xuutiyiinta dalka Yemen? la sheegay weerarkan mid lamid ah weligood xuutiga inaysan ku qaadin gudaha Israa'iil. waxaa la sheegay weeraro dhowr ah caawa hal mar in dhowr jiha ay Israa'iil uga yimaadeen, taas oo dhammaan la sheegay inay soo tuureen xuutiyiinta dalka Yemen. weerarka midka ugu halista badan ayaa la sheegay in lagu beegsaday Ben Gurion, taas oo sida ay qoraysa Al Jazeera iyo warbaahinta kaleba ay keentay in nidaamka hagista hawada eraboorkaasi Ben Gurion inuu khalqal ku yimaado, gabi ahaanna uu hakado. jaraa'idka Idiot Anod ee ka soo baxay Israa'iil ayaa isna waxa uu qoray goortii weerarka u dhacayay in Israa'iil ay qorsheynayeen in eraboorka dib loo furo oo si caadi ah isu socodkii diyaaradaha caalamiga ahaa iyo dhammaan nidaamkii eraboorka dib loo soo celiyo. laakiin xuutiyiinta ayaa waxaa si la yaab leh ugu soo beegeen weerarkan xilli qorshahaasi la diyaarinayay. horay diyaarada caalamiga oo ay ka mid tahay Ryanair, diyaaradda qiimaheedu jaban yahay in lagu duulo, iyo sidoo kale diyaarado dhowr ah oo ay ka mid tahay Swiss iyo kuwa kale ayaa dhammaan ku dhawaaqay isbuucan in ay joojiyeen safaradii ay ku tagayeen gudaha eraboorkaasi iyo guud ahaan hawada Israa'iil ilaa iyo bartamaha bisha hadda bilaabatay. tan caawa dhacday weerarkan ayaa la sheegay in ay muujinayso khatarta hawada Israa'iil ay wajahayso. Israa'iil ayaa isbuucii la soo dhaafay waxa ay weerar halisa ku qaaday eraboorka weyn ee Sanca, taas oo keentay in eraboorkaasi burbur weyn uu gaaro, halkaasna ay ku burburto diyaarad halkaa ku sugnayd xilligaasi. waxaa sidoo kale la sheegay in gabi ahaanba eraboorkii uu hakad galay. caawa weerarka xuutiga ayaa la sheegay inuu ahaa mid argudasho ah. haddaba sidee wax u dhaceen? waxay wararku sheegayaan sida Al Jazeera iyo warbaahinta kale ay qorayaanba in nidaamkii kala hagayay diyaaradaha duulimaadyada ku yimaada eraboorka in uu keenay gantaalada xuutigu in uu lumiyo hagitaankii oo xiriirkii meesha uu ku dhumo, taas oo qalqal weyn abuurtay. waxaa isla markaana garab socday baa la yiri duqaymo kale oo iyaguna lagu beegsaday gudaha Tel Aviv iyo sidoo kale Jerusalem. inkastoo ciidanka Israa'iil gaar ahaan ciidanka hawada ay sheegayaan ama ciidanka cirka in nidaamka difaaca Israa'iil uu qabtay qaar badan oo kamid ah gantaaladii caawa lagu soo weeraray gudaha Israa'iil, laakiin warbaahintu waxa ay sidoo kale qoraysaa in nidaamka seeriga digniinta bixiyo caawa qayladiisa gudaha Israa'iil la kala damin waayay oo uu muddo qaylinayay saacada ah, taas oo muujinaysay weerarada halista ah ee caawa Israa'iil ay la kulantay. tani waxaa la leeyahay waa muujinayaan xuutiga in awoodoodu ay weli nooshahay oo ay awoodaan in khalqal iyo cabsi iyo walwal ay ku abuuraan gudaha Israa'iil, isla markaana ay burbur gaarsiiyaan eraboorka iyo goob walba oo ay markaa damacsan yihiin. horay markii loo burburiyay eraboorka Sanca, waxaa hadlay hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdimalik al-Xuuti. khudbad uu jeediyay ayaa waxa uu ku sheegay weerarada Israa'iil ay ku qaadayaan eraboorka Sanca iyo goobaha kale inaysan waxba ka bedeli doonin weerarada xuutiga ay ku beegsanayaan gudaha Israa'iil, iyo sidoo kale isgarab istaaga ay garab istaagayaan walaalahood reer Gaza. xuutiga ayaa hore u sheegay sida kaliya Israa'iil ay kula heshin karayaan oo weerarada ay ku hayaan lagu joojin kara inay tahay Israa'iil oo gabi ahaanba joojiso duqaymada
iyo weerarada iyo cunnada laga jarayo marinka Gaza inay joojiso. Dagaalka Gaza ayaa waxa uu socdaa in ku dhow 20 bilood waxa uu galaaftay nafafka dad badan oo reer Gaza ama noloshooda iyadoo caruur badan agoon uu ka dhigay qaalkana rajo uu ka dhigay. Dalalka Carabta ayaa inta badan wax falcelina aan ka samaynin marka laga reebo qaar yar. Si kastaba ha noqotee maanta dunida inteeda badan ayaa waxa ay ka soo horjeedaan dagaalka socdo iyadoo dadka caadiga mudaharaadyo badan dadka u dhaqaaqa arrimaha bini'aadamka ay muujinayaan sida looga xun yahay. Qaar aan xitaa muslim ahayn ayaa 24 saac u ooyaya oo u dhibtaan reer Gaza iyadoo malaayiin muslimiin ahna ay u soo ducaynayaan iyadoo xaramka iyo sidoo kale masaajidda guud ahaan dalka Sacuudiga ku yaala markaad booqato waxa looga ducaynayaa reer Falastiin iyadoo lagu habaarayo Israa'iil iyo militarigeeda gardarrada ay ka wadaan marinka Gaza. Waxay hadda u muuqataa dagaalka in inta badan si isku mid ah looga soo horjeesanaya laakiin weerarada aan kala go'o lahayn Xuutiyiinta ayaa la sheegay inay tahay gargaarka qayb ka mid ah gargaarka ay helayaan dadka reer Gaza. Walaalaha ay saaxiibada qiimiga leh warkan caawa soo dhacay ee degdega in yar ka hor warbaahintu ay faafinayso ee ah in caawa airportka Ben Gurion gabalkiisu u dhacay xaalad mugdi oo galay goor la rabay in iftiinkiisu uu baxo falaadyadii niyada loo dhiso shirkadaha lagu dhiirigeliyo inay degdeg ugu soo noqdaan duulimaadyadoodii ayay waxay muujinaysaa khatarta ka jirta hawada Israa'iil. Waay qodobka xiga barnaamijka ayaan toos u galeynaa walaalaha qiimiga leh iyadoo uu noo soo socdo qodob xiiso leh oo ku saabsan wasiiradii Carabta ayagii cashar loo dhigay. Haddaad maqli jirtay Hamas iyo Xuuti iyo Israa'iil saayaan wasiiradii Carabta isbuucan wixii ku dhacay caaway jawaabeen jawaab yaab lehna jawaab waa isla eegi doonaa laakiin aan ku hormaro walaalaha qiimiga leh wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa waxa uu jeediyay hadal carab weyn dhaliyay taas oo abuuray shakiga ah sidee loogu guuleysan karaa heshiis dhexmaro Hamas iyo Israa'iil sidee Israa'iil lagu aamini karayaa haddii wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil Katz uu leeyahay dagaalka waxaan amray ciidanka inay sii wadaan wadahadal iyo wadahadal la'aan sida ku qoran warbaahinta Israa'iil iyo kuwa kala caawa ay qorayaan. Waxa la sheegay hadalkan inuu abuurayo xiisad iyo kalsooni darro iyo inaan la aamini karaynin heshiis walba oo Israa'iil soo bandhigto. Hadalka Katz waxa uu ku soo aaday xilli maanta Hamas ay sheegtay ay shalay ay sheegtay in ergeyga gaarka ahna uu xaqiijiyay in jawaabta Hamas ay tahay mid aan ahayn diidmo laakiin muujinayso in wada hadalkii hore loo sii wadi karo heshiisna la gaari karayo. Waxa ay dalbatay ay tahay in qodobada qaar la nidaamiyo oo sidii hadda u qoran yihiin wax laga bedelo taas oo suurtagal ah in la isla eego laakiin wasiirka gaashaandhigga hadalkiisu muxuu ka macno yahay waa hadal tafsiir badan qaadan karo oo macno badan uu gali karo ictibaar badan siyaabo kala duwan loo qaadan karo. Mar haddii uu leeyahay ciidanka waxaan amar ku siiyay dagaalka la sii wado maxaa heshiisku uu ka dhigan yahay oo laga galaya. Si kasta ha noqoto ciidamada ka dagaalamaya marinka Gaza Israa'iil qaar badan oo kamid ah ayaan rabin dagaalka inay ku sii jiraan qaar ciidamadii kamid ah ayaa gadooday qaar ciidamadii keedka Israa'iil kamid ah ayaa warqado qoraya oo dhahaya dagaalkan ma rabno inaan ku sii jirno. Warbixinteeni shalay intii daawatay waxa ku jirtay mid kamid ah askarta Israa'iil inuu yiri wax kasto dhacay dagaalkan ma galayo oo ma rabo inaan dambiye dagaal lugta la galo. Waxaan ka hadlayna ma ahan banaanka waa ciidamadooda waxa Gaza ku dhimanaya caruur iyo dumar ayaa u badan isbitaaladii ayaa burburay madaaristii ayaa burburtay oo dib weyn ayaa gaaray reer Gaza iyadoo inta badan dunida markii hore ay ka aamusnayd laakiin hadda ay u muuqato in indha gaara lagu hayo oo Israa'iil aad looga carooday oo dawladda iyo kooxo markii hore saaxiibo la ahaa hadda ay isku dayayaan in Israa'iil ka fogaadaan. Si kastaba ha noqotee Ireland ayaa noqotay dawladdii ugu horeysay ee Yurub ee sheegtay waxa dhacaya inay tahay xasuuq iyo dambiye dagaal taas oo macnaheedu ay tahay in dawladaha ka soo horjeedo iyo dadka Israa'iil aad u dhaliilsan maalinba maalinta ka dambaysa inay sii badanayaan isla markaana ay sii dhiiranayaan oo laga hor imaanayo taas oo gelinayso Israa'iil marxalad adag. Netanyahuna lagu eedeynayo inuu Israa'iil hog halis ah ka tuuray. Saaxiibada walaalaha qiimiga leh hadalka wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo la yaab kale oo mar kale gelinaya shakiga ah iyo sababta Hamas ay u codsatay in la helo cid
damaanad qaadayso ballanqaadka Israa'iil ay furayso labadoodana u dhaxaynayso lana aamini kara in la helo oo macnaheedu ay tahay inaysan aaminaynin Israa'iil wax kasto ka soo baxo ayay mar kale cashar u noqon kartaa ayaa la dhihi karaya waan isku soo ducaynaynaa maalmahan qiimiga badan ee barakada badan oo acmal kasta oo la sameeyo Ilaahay uu ku labalaabayo uu ku toban jibaarayo waa fursad weyn oo mudan in laga faa'iideysto waa waqtiga Allah uu jecel yahay amal la sameeyo 10kan maalin hadda inuu ku jirno waliba waxa inagu soo food leh maalmo kale oo qiimo badan maalinta sagaalaadka oo aan Carafa taaganahayna mar kale waan idin xasuusinayaa inaad ii soo ducaysaan anagana idin soo ducayno kuleelka iyo inuu Ilaahay noo fududeeyo acmaasha guulaysta meel kasta aad joogtaan idinkii ehladiina iyo qoysaskiina caafimaad umri iyo cibaado suban ayaan Allah idin weydiinayaa iyo dalku Allah noo xasiliyo dunida islaamka Ilaahay xasiliyo reer qazo Ilaahay dhibka iyo culayska uu ka dulqaado faraj degdegna Allah furo qaybta ugu dambeeya barnaamijka caawa waxaan idinku hayaa sheekaya badan wasiirada dalalka Carabta ee loo diiday isbuucan markii ay tageen dhulka reer Falastiin in ay booqdaan daanta galbeed kulan ay la qaadan lahaayeen Maxamuud Cabbaasna la diiday oo militariga Israa'iil ay u diideen iyo nidaamka Israa'iil ayaa maanta shir jaraa'id oo ay qabteen waxay si carale u cambaarayeen Israa'iil waxayna ku sheegeen in nidaamka Israa'iil uu yahay nidaam xag jir ah kooxda hadda haysatana ay tahay koox xag jir ah oo aan doonaynin xal in laga gaaro xiisadaha iyo xaaladaha ka jiro guud ahaan bariga dhexe waxayna sheegeen dalalka Carabta wasiiradooda in intaa kadib Israa'iil aan la eegan karaynin hab dhaqankeeda guracan iyo sida ay u dhaqmayso kaliya ma ahan Israa'iil waxay u diiday in dhaqdhaqaaq ay ka sameeyaan bariga dhexe gaar ahaan deegaanada reer Falastiin oo dalalka Carabta xitaa wadamo Yurub ah iyo warbaahintii qaar badan oo kamid ah ayay u diiday inay halka tagaan sababta oo la sheegay in Israa'iil marnaba ay ogoleen cadeemo iyo macluumaad madax bannaan in la helo si xaqiiqooyinka halka ka jiro looga salgaaro wasiirada Carabta ayaa waxa ay ku sheegeen falka Israa'iil ay geysatay mid fog oo muujinaya sida xag jir ay u yahay nidaamka Israa'iileed waxayna ballan qaadeen in reer Gaza iyo guud ahaan reer Falastiin daanta galbeed iyo marinka Gaza dhammaan meel walba inay Carabta diyaar u tahay inay garab istaagto reer Falastiin laakiin dalalka Carabta ayaa waxa lagu eedeeyay intii marinka Gaza dagaalka u socday Israa'iil dulimaadka ay ku waday in aysan reer Gaza iyo reer Falastiin garab istaagii ay mudnaayeen iyo walaalnimadii laga filanayay aysan garab istaagin oo markaa reer Falastiin ay dareemeen dayac badan iyo sidoo kale eeda badan oo ay ka tirsanayaan qaar kamida dalalka Carabta oo wanaagii iyo walaalnimadii laga sugayay aysan ka helin laakiin hadda hadalka ka soo baxay maanta dalalka Carabta waxa uu muujinayaa sida dawladaha Carabta ay khoos uga taageen Israa'iil oo Carabta waxay muddo dheer isku dayeen bal in xal la helo oo ay ku celcelinayaan waxa kaliya ee lagu gaari karo xalka dagaalka bariga dhexe gaar ahaan Falastiin Israa'iil inuu yahay in la helo laba dawladood ama xalka labada dawladood taas oo keeni karta bay yiraahdeen in dagaalka uu soo afjarmo laakiin qubaradu waxa ay sheegayaan in dagaalka uusan ciyaar ku afjarmaynin Israa'iilna aysan hadda aqbalaynin ama u muuqanin ay aqbasho xal laba dawladood oo la gaaro xitaa hadii laga saaro kooxaha ay diidan tahay inay ka mid noqdaan dawlad reer Falastiin ay leedahay dawladda Yurub iyo kuwa kale iyo kuwa muslimiin iyo kuwa Carbeed ayaa u ololeynayo in la gaaro nidaamka ama xalka loo yaqaano laba dawladood taas oo muddo dheer caalamku uu ololeynayay oo dhowr jeer loogu baaqay nidaamka Israa'iil inay aqbalaan walaalaha ay saaxiibada qiimiga leh barnaamijkeennii habeenimo oo caawa aad kala socoteen Kow Somali Media aynu ku soo qaadanay qodobada kala hadalka wasiirka gaashaandhigga Israa'iil weerarkii lagu beegsaday airportka Ben Gurion iyo sidoo kale jawaabta wasiirada Carabta ay ka soo saareen diidmadii loo diiday iyo inay ku tilmaameen in uu yahay nidaam xag jir ah oo aan lala macaamili karin waxa hadda ka jira Israa'iil inta ayaan caawa ku soo gabagabeynaa tan iyo inta aynu kulmayno barnaamijkan mid lamid ah walaalkiin Mustafa Ali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushiina ha aato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh